Thank you. daawadayaal sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay oo halkan aan ku sugannahayna waa garoonka Jomo Kenyatta waxaan soo dhaweynaynaa fanaan qaali nagu ah oo aad wada taqaanaan sida ka muuqata dayaxdal nuurshe waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dayax waxa uu u yimid inuu ka qayb qaato program qiimo badan oo ka dhacay magaalada Nairobi programkaas oo ah Somali International Fashion Show oo ah program ku cusub Soomaalida oo aan wali ka dhicin qayb dalka iyo dhamaan banaanka barnaamijkaas ayuu qayb ka yahay dayax wuxuu nooga yimid Muqdisho asagoo tixgelinaya dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijkaas casuumaad ay u fidiyeen dayax soo dhawo وادوا walaalkii Cabdishakuur waa mahadsan tahay marka koowaad ma aha waa markii labaad laakiin waa markii ugu muhiimsanayd oo ay maatay marka number 1 horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii gabdhihii walaalahii ahaa iyo wiilasha walaalahii ah maxaa la isha meeshan fanaaniinta ka marneen actress ka marneen cameramanadii ugu qaalisanaa Soomaalida aan ka marneen qaban qaabiyaashii iyo dadkii maskaxda iyo maxaa la isheeg ugu qalbiga wanaagsan aan ka marnay meesha maanta ku dhan yihiin waqtiga baa yar naga yar dhacay waa u mahad celinayaa waana ka raali gelinayaa daahiyadna soo yar galay saakeena imaanay ahayd galabay nagu noqotay waa ku faraxsanahay ka soo qaybgalka programka Somali International Fashion Show ka dhici doona insha Allah habeen dambe oo magaalada Nairobi dalka Kenya runtii waxay noqonaysaa waxaan hore looga baran unique ah Soomaali waxyaabo unique ah Soomaalida ee anaga caalamka iyo waxyaabo TV aan ka daawan jirno oo aan isla jirno ma la hamin karin suuragalkooda inay dhalinyaro Soomaaliyeed soo qaban qaabiso ay maanta sameeyaan waa wax horumarka kamida waa wax maxaa la ii sheegay kamida inaan Soomaalinimadii iyo inaan nahay dad jira waa wax kamida marka waa ku faraxsanahay imaatinka iyo soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee ay sameeyeen dayax wuu mahadsan yahay in fanaaniinta kalena waa siinayna laakiin dadka ina daawanaya waxaan u sheegaynaa in habeen damba showga Somali International Fashion uu ka dhacayo hotelka Crown Plaza oo ku yaala wadada Abahil meeshii hore loogu talagalay waa laga bedelay sabab jira awgeed maadaama dad badan ay gateen invitationkii meeshii ay buuxsantay waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijka dhamaan Somali International Fashion Show nasiib soo dhawo adigana habeen dambe waxaad ku jirtaa dadka fashion ka qayb qaadanaya fanaaniinta sanadkan ayaga galaayo fashion aw dad kale la raadi jiro oo xayziima ay wax sameeyay furniyo horta aniga fashion ka qayb geli karaa laakiin dad aan ogahay intaas bay leeyihiin kullu uu gaarsiin doona raagay aad baan ugu faraxsanahay my brother the one and only legend dayaxdal nuurshe oo de mataqaana maanta aan habeen dambe xayziinta ka qayb galnaanay waxaan ka cabsanahay xayziinta dadka ku jiro in la dhaho nasiib iyo dayaxa noo heysina bal idinka noo socdana dad badan baa isdhibayo lugi gacan ka horeeysa laakiin Somali International Fashion Show wallahi waa fashionkii ma taqaanaade ugu horeeyay Soomaali abid ay sameeyso waxna waa iska sameeys waxna waa caalami wixii markay caalami yihiin dadka ka dhex muuqda iyo dadka sameynaya iyo aqliyada meesha dhex taala laga fahmaa marka waxa waaye wallahi aan caadi ahaan bay tahay ka soo qayb galay hadaa dayaxna aad u jeedaan habeen dambe ma taqaanaa waa kala kacsanahay kala yalaab wadaas Yubeysani nasiib waa mahadsantahay Yubeysani inta u gaarin barnaamijka sidoo kale waxa ka soo qayb galay oo ka qayb qaadanaya madax ka tirsan dalka Kenya dawladda Kenya oo ay Soomaalida ugu horeyso maadaama anaga Soomaali aan nahay waxaan qabanayo Soomaali loo qabanayo dad badan oo madaxa waliba madaxda ugu muhiimsan dalkan ee Soomaalida ayaa qayb ka noqonaya Yubeysani hal ilaba adigana oo jirta dadka fashion ashkura aad ma santaartu markii waxaan leeyahay walaalkii dayax soo dhow welcome to Nairobi aniga adiga sida nasiib baniin ani aad iska badanay xamarkaas oo furiyo oo torta ku soo jara nooga baxmay ani aad iska badanay welcome to Nairobi kulli dayax haduu imaado Nairobi habeen dambe waxaan filaysin barnaamij aad u qurux badan fanaaniinta Nairobi intii ugu qatarsaneed intii ugu shidneed oo ku jira dayax waa inuu habeen dambe أنا هرتي كور فاشون كنا كور هذه فاشون ممكن قبل جلي كري ما مطلق قابل دبك قابل أنا شيء تبي جرا يعني كده أنا كم قبل جلي كري كله بعدي وحلقة هذا أنا ضيح وحلقة هذا يا نصيب لكن تبغون أكتر ماشي أقول جرا يوسف ما صنت هاي إن سيدو كله هبين كاس
waxaan meesha ka marnayn oo heese kaliya iyo fashion ma jiro waxaad meesha ka marnayn Big Bro oo aad wada taqaanaan iyo qosol habeen dambo waa loo daadanaa ee dhaxlan dheeray ay Big Bro runtii waa soo dhaweynaa Soomaali fashion-ka oo kii ugu horeeyay ay qabataa laakiin aniga Big Bro kuma jirin fashion-kaas laakiin waxaan dadka u sheegi doonaa bal fashion-ka iyo say Soomaalidu arkaan هذه بيقولوا لك كما قيب قادني كما قيب قادني لكن Soomaalidu bal fashion-kan ku cusub sida ay ka aaminsan yihiin dadkan oo wadada yar loo sameeyay socda iyo bal sida ay u arkaan baan insha Allah kaga qayb gali doonaa macnaha waa qaab dadka waan ka qosin doonaa insha Allah علشان علمك هذا بيع سوق والله horta ani fanaaniinta badna markay imaanayaan horta ma soo dhaweeyaan ma garan qofkii ugu weyn oo aniga aan taageero baan soo dhaweeyaa hadana qaasatan adiga because haweenin dhalinyaro tahay aad baan ku taageeraa may waxa waaye markay Nairobi qalbigayga ugeed waxa aniga iyo xaaskay family-ga dhanbo soo wada wada Nairobi soo dhawaada mid kale barnaamijkan oo fashion-ka horta aniga cilada badan ay haystaan ku dhaqanay laakiin waxa uu qayb galaya barnaamij maarta waxaan sameeynaa aad u qurux badan yaa arkay yaa maqlay dayaxan sidoo kale heeso oon caadi ahayn oo noo wada nasiiba ku jiro iyo beezani waa la badan yahay fanaaniin badan ay ku jiraan marka ani iyo ninkan filin baa meesha ka jali doona hees kaliya uu ku jira hadhootida ma u sheegi doona asxaabta hoolkii sidoo oo wariyahan uu sheegay asxaabta uu sheegay hoolkii ana u maleynaa waa la bedelay dad badan u sheegay taa hoolkii waxa loo soo bedelay Crown Plaza oo ku yaala Upper Hill asxaabta soo dhawaada reer Nairobi barnaamij aad u qurux badan waaye marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad soo dhawaataan waxa kaloo kamid ah fanaaniinta ka qayb galaysa Somali International Fashion Show ila yara iyo qaaliladan iyo fanaaniin kale oo ku sugan maxallaha Nairobi dayax maanta wuxuu kamid yahay dadkii la soo dhaweeyay dad badan oo waxa jira imaaday oo laakiin aan la soo dhaweyn laakiin barnaamijka qayb qaadanay oo dal iyo dibad ka imaaday dayax qofkii ugu dambeeyay aan soo dhaweyn oo kamid yahay laakiin iila iyo qaalada maxaa ka wada astaar waxa kamid ah iila qaalada marka dadka u baahan in xog fiican ay ka helaan barnaamijka ama tigidhka qaabka lacagta loo bixinayo meesha waxa loogu soo qorayaa hoos si ay ugu akhristaan boorka laakiin meesha uu ka dhacayo meesha hore waa la bedelay oo waxa la geeyay Grand Plaza marka cid walba oo ka qayb qaadanaysa waa la soo dhaweynayaa dhamaanna waxaan rajaynayaa Soomaalida ku nool Kenya oo dhan waa Nairobi ma inay imaanayso waayo dad badan oo waxa jira xiise ay u qabaan barnaamijkaas dartiis Mareykanka iyo Yurub oo yimaada inay ka qayb qaataan